السلام عليكم barakooyinka rabbi iyo naxariistiisu korkiina ha ahaadeen intiinii horay channelka ula socotay isoo noqdo wanaagsan aad baad ugu mahadsantihiin fariimaha quruxda badan ee danaynta iyo lixjacalada leh ee aad ii soo direyseen intiina nagu cusubna waxaan idin leenahay soo dhawaada channelka waa channel Koriimo waa channel cid ugu horeysa ee Koriimada ka raadisa aan anigu ahay channelkan 193 dadka ku xidhan wuxuu channelku ii sheegayaa inay yihiin dad dhalinyaro oo u dhaxeeya 18 ilaa 34 waana sababta aan mowduucan u doortay maanta inaan idin la wadaago waa mowduuc qalbigay ka soo go'ay waa mowduuc aad muhiim igu ah waa mowduuc marar fara badan aan ka fikiray inaan soo wadaago laakiin duruufuhu aanay ii saamixin qof walba dhalinyaro oo maanta dhageysanaya oo 20 jira oo u dhaxeeya da'da 20 ilaa 35 muuqaalkan adigu ku saabsan yahay marxaladda 20 jirnimada waa marxalad aad iyo aad muhiim u ah waa marxalad isbedel fara badan uu qofku noloshiisa ku dhaco waa marxalad lagu tilmaamo the defining decade actually waxa jira book dhan oo laga qoray oo la yiraahdo the defining decade waa xilli qofku dan si kale u yiraahdo ay noloshiisu samaysanto waa xilliga la tilmaamo in 80% qofku uu gaadho go'aamada noloshiisa ugu muhiimsan haday tahay waxa uu ka shaqeynayo haday tahay waxa uu baranayo haday tahay jaamacadda uu aadayo haday tahay skillska uu baranayo haday ay tahay cid xitaa uu nolosha la wadaagayo waa waqti markaa muhiimad inta in la egle waa waqti unique ah waa waqti isbedel fara badan qofku noloshiisa ay ku dhacaan waa aad iyo aad very critical ah unique na oo ka duwan marxaladaha kale ee qofka cumriga ee bani'aadamku noloshu maro marxaladan waxay leedahay unique la tahay calaamado dhowr ah aanay lahayn marxaladaha kale marxaladan qofka ku jira responsibilities fara badan ma saarna waxa laga yaabaa inuu qofku guriga hooyadii iyo aabihi ku nool yahay ilmo kama daba ooyayaan biil fara badan lagama rabo noloshiisa in badan oo kamid waxay ku tiirsan tahay waalidkii marka waa xilli responsibilitieska nolosha iyo culeysyada nolosha iyo aanay qofku saarnayn in badan oo kamid ah taa macnaheedu waa maxay wuxuu qaadan karayaa isku day fara badan wuxuu qaadan karayaa riskiyo fara badan wax badan buu isku dayi karayaa qofku marka uu guursado oo uu caruur dhalo mas'uuliyad badan baa kora marka biile laga sugayo ma qaadan karayo riskiyada uu qaadan karayo qofka 20 jirka sidoo kale xilliga waxyaabaha unique ku tahay waxa kamid ah qofka 20 jirka xilliga maskaxdiisu waxay joogtaa heer ay Koriimada maskaxeed ay diyaar u tahay inay qaadan karayso wax baran karayso skills qaadan karayso ay aad u sareyso inuu heer uu qofku imagine gareyn karayo wax aad u fara badan khayaalka qofka 20 jirka lama mid aha xilli kale waxa xilli aad u sareeyo waxa xilli identity-giisa iyo formationka qofka uu yahay uu sameysmayo da'da 20 jirka ilaa 30 jir qofku ka gaarayo waa defining decade waa 10 sano oo runtii aad muhiim u ah qofka noloshiisa xilligii ay sameysmaysay ah culimadu waxay oran jireen qofka yaraantiisu ay ifto weynidiisu iyo mustaqbalkiisa dambana uu ifaa oo qurux badnaada idan waxaan rabaa inaan la wadaago 20 talo oo si degdeg ah u dul cararayo laakiin aad u culus 20 jirkaygii markaan ahaana aan jeclaan lahaa in la ii sheegi lahaa waxaan isleeyahay 20 talo haddii aad gunudo wax badan bay 20 jirnimadaada ifin doontaa weynidaada iyo mustaqbalkaagana wax weyn bay sii qurxin karaysaa ta koowaad waxa weeye sawiro nolosha aad doonayso inaad ku noolaato yellow vision iyo riyo wax waliba noloshu 2 jeer bay samaysmaan marna maskaxda ayay ku samaysmaan oo waxa weeye waa riyo iyo imagination iyo qofku wuxuu suureysanayo deetana marka labaadna si caadi ah u dhashaa oo ficil marka la yimaado way samaysantaa ficilkan halka uu ka bilaabmo waxa weeye inaad ahdaaf yeelato talada labaad noloshaada mas'uuliyaddeeda 100% qaad waa laga yaabaa inaad la nooshahay hooyo iyo aabbo iyo dad walaalo ah iyo ehel ku jecel oo la jecel kaale laakiin wax walba nolosha ku qaban kari maayaan sida markii aad qaan gaadhay aad 15 jirka noqotay
ay laba malag garbahaaga loo saaray ee wax wal oo aad qabanayso oo aad samaynayso shar iyo khayr loo qorayo ayay nolosha kale oo dhan adiga kuu sugaysaa. nolosha keligaa baa yimi, keligaa baana ka tegaya. hooyada iyo aabbaha way ku jecel yihiin, walaalaha iyo ehelkaaga aad bay ku jecel yihiin, la jecel kaa leeyihiin, laakiin kuma qaban karayaan shaqada adiga kuu taalla. salaadaada kuma tukan karayaan, jimicsiga kuma samayn karayaan, wax kuma baran karayaan, garaadkaaga kuma korin karayaan. adigay tahay inaad mas'uuliyadda noloshaada aad 100% aad qaado. xilliga qofku uu 20 jirka yahay wuxuu leeyahay fikir teenage-nimada ama muraahaqnimada ka soo raacday oo ah dibad eedays in wax wal uu ku eedeeyo wax isaga ka baxsan, noloshiisa ka baxsan, in ku eedeeyo in wax dhacaya noloshiisa ka dhacaya in iyagu mas'uul ka yihiin, laakiin cid mas'uuliyadda noloshaada ku qaadi karaysa oo adiga ahayn ma jirto. 3 isku day badan samee inta aad yar tahay aanay mas'uuliyad badan ku korin. isku day inaad waxyaabo badan aad isku daydo, bara xirfado badan, isku day waxyaabo fara badan, tijaabi arrimo fara badan. xilliga waa xilli ay tahay inaad isku daydo waxyaabo fara badan noloshaada, waayo waxaad ka baranaysaa casharo aanad si kale noloshaada ku baran lahayn. talada afraad, don't take anything for granted. waxna ha sahashan nolosha, waxna ha u qaadan in weligeed ay ku joogayso. caafimaadkaaga weligii ku joogi maayo, waalidka iyo ehelkaaga iyo qaraabadaada iyo dadka aad jeceshahay weligood inaanay kula joogin bay u badan tahay. don't take anything for granted. ka faa'iidayso nimcooyinka aad haysatay kugu hareeraysan, dadka ku jecel, caafimaadkaada haysato, caqligaada haysato, fursadahaada haysato, kulli ka faa'iidayso intaad yar tahay. talada shanaad, go'aamada fudud ka doorbid go'aamada adag. waxaan uga jeedaa noloshu choiceska maalintii aan qaadanayno iyo go'aamadaan gaarayno ee tirabeelka ah maalin kasta waxa weeye kuwa adag iyo kuwa fudud. qofku wuxuu tendency u leeyahay ama u janjeeraa inuu in badan qaato go'aamada fudud ee raaxada ah intii uu qaadan lahaa go'aamada adag. laakiin markastoo aad go'aamo adag qaadato intaad yar tahay waa markasta oo marka aad weynaato noloshaada ay fududaanayso. markastoo aad go'aamo jilicsan oo choices maanta iska sahlan aad qaadato waa markastoo ay noloshaada birika maalin markaad weynaato ay noloshaada adkaanayso. talada lixaad, maskaxdaadu ha ka awood badato dareemadaada iyo laxawiyadaada. maxaan uga jeedaa in badan oo ka mid ah go'aamada khaldan ee nolosha aan gaadhin aan ka shalayno waa kuwa la xidhiidha dareemadeena iyo feelingskeena, maaha kuwa la xidhiidho oo si logical aan u gaadhnay oo rational ah. sariirta feelinkaagu wuxuu ku leeyahay subaxii markaad sariirta ka soo kacaysa iska sii yara seexo, wuxuu ku leeyahay wax iska daawo, facebooka iska gal, saaxiibada iska wac, musalsal iska daawo, ciyaare iska daawo. halka maskaxdaadu ay ku leedahay omagaaga ka shaqee, ordoo shaqo aad, ordoo jiimka aad, ordoo howlaha kuu muhiimka ah qabo. marka haddii aad dareemadaada dhegaysato oo aad mar walba dareemadaada ku gaadho go'aamadaada iyo choiceskaagi waxaad dooranayso way adkaanaysaa inaad gaadho wax fiican oo qurux badan oo nolosha lama jeerto. talada 7, ka fiirso cidda aad circle-kaaga ku soo biirinayso ee saaxiibada la noqonayso. nolosha maan arag wax ka saameyn badan qofku cidda ku hareeraysan ee saaxiibada uu leeyahay. wuxuun baad noqonaysaa celcelis ahaan 5 qof ee kugu hareeraysan cidda ay yihiin. maantana scientifically waa la ogaaday. horena nabiga sallallahu alayhi wasallam noogu tilmaamay wuxuu yidhi almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhalil. qofku diinta saaxiibkii unbuu yeelanayaa, qofku cidda ula saaxiibayo ha ka fiirsado. talada 8aad, noloshu waa trade off. noloshu waa kala doorasho. either wax kastoo aad dooranayso nolosha waxaa jira waxaad ka tegayso, wax kastoo aad ka tegaysana waxaa jira waxaad dooranayso ood ku bedelanayso. maxaad wax ku bedelanaysaa? waa maxay waxaad ka tegayso aad ku bedelanayso nolosha quruxda badan ee aad doonayso inaad ku noolaato. sida ay muhiim u tahay inaad ogaato waxa aad doonayso nolosha ayay muhiim u tahay inaad ogaato waxa aanad doonayn nolosha. talada 9aad, yeelo qudwo iyo cid aad ku dayato. bani aadamku wax ma gaadho inta badan haddaanay jirin cid uu ku dayanayo oo ka horeysa. bani aadamku wuu isku daydaa. ilaahay subxaana wa tacaala aadanaha wuxuu u soo dejiyey ambiyo ay ku daydaan. ambiyadana waxaa loo sameeyey kuwo ulul casmi ah oo sare oo ilaahay subxaana wa tacaala si gaara u doortay oo qudwo u ah ambiyadii rasusha inta kale. bani aadamku wuxuu u baahan yahay cid uu ku daydo oo role model qof kastoo cadiima, qof kastoo maanta wax gaadhay oo nolosha qaybaheeda kala duwan ku jira. waxaa jiray dad ay 20 jirnimadoodii ay suuraysan jireen inay iyagoo kala noqdaan. marka
yeelo cid aad ku dayato nolosha. Talada tobnaad, inta aad yar tahay oo 20 jir ka tahay, yeelo mentors, dad ku haga oo ku tilmaama oo ku tusaaleeya oo ku hawaala warrama. haddii guusha aynu ku tilmaami karayno saddex wado oo guusha bani aadamku ku gaadho, mid waxa weeye waa tijaabo iyo isku dayid iyo kacakuf qofku waqti fara badan ka qaata. midna waxa weeye qofka Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku hago oo si fudud uu u gaadhsiiyo meesha uu isagoo ku haminayo, waana mid Ilaahay subxaanahu wa tacaala hidaayo rabbi weeyta. midda saddexaadna waxa weeye qofka si fiican ugu soo fududaysa waa inay jirto waxa aad doonayso dad gaadhay, dad ugu yaraan 5 sano 10 sano ka horeeya oo ku fududeeya wadada ka horeysa, godad badan ka leexiya, waqti fara badan ku weeleeya. qofka inta uu yariyahay waqtiga ayada 20 jir qofka uu yahay, riyooyin badan iyo isku dayo badan iyo tijaabooyin fara badan buu leeyahay, laakiin khibrad badan ma leh. waxaad u baahan tahay cid ku xigta oo mentors ku ah. 3 sano ka weynaan karaya, 5 sano ka weynaan karaya, 10 sano ka weynaan karaya, 20 sano ka weynaan karaya. hareerahaaga fiiri meeshaad u socoto iyo waxa aad doonaysidna ogow, deetana cidda aad isleedahay waxaasi way ku wanaagsan yihiin, heer bay ka gaadheen, noloshaada ku hareeree, wax ka baro, jaal la noqo, la saaxiib. talada 11aad, wanaaji cilaaqada adiga rabbiga idinka dhaxaysa. rabbiga cilaaqo wanaagsan la yeelo, rabbiga kaasho. qofka bani aadamka mustaqbalkiisa daqiiqad kadib ha noqotee ma garan karayo wax soo socda. rabbiga isagaa garanaya tagtadaadii, isagaa garanaya taagantaada, isagaa garanaya timaadadaada iyo waxa aad doonayso iyo waxaad ku hamiyeyso, isagaa garanaya awoodahaaga, isagaa garanaya weaknesskaaga, isagaa garanaya wadada waxa ka horeeya caqabadaha ku horyaala. rabbiga subxaanahu wa tacaala isagaa garanaya, kaasho, cilaaqo wanaagsan la yeelo. haddaad rabbiga kaashato oo aad cilaaqo wanaagsan la yeelato, isagaa kuu noqonaya garab, isagaa kuu noqonaya gaashaan, isagaa kuu noqonaya markastood rabbiga aad u dhawaato oo cilaaqo wanaagsan la yeelato, noloshaada in badan oo kamid way fududaanaysaa. talada 12aad, yeelo takhasus iyo waxaad ku fiican tahay. bani aadamku qofku wuxuu gooyaa waxa uu ku fiican yahay. qiimaha qofku waxa weeye waa waxa aad ku kordhin karayso dadka kale noloshooda. yeelo waxaad ku fiican tahay weyna jiraan. waxaa jira buug la yidhaahdo so good that they cannot ignore you. waxaad qabanayso ku fiicno ilaa heer aan lagu inkiri karin, heer waxa aan lagu qarin karin. يعني qofkuna wuxuu musaa ku noqon karaya inuu takhasus yeesho, wuxuu ku wanaagsan yahay ay jiraan. dooro intaad yar tahay majaal iyo field iyo takhasus ay tahay inaad fikta sare aad ka gaadho ood ku wanaagsanaato, si qiimaha waxaad ka goynayso suuqa uu u wanaagsanaado. talada 13aad, dhiso caadooyin wanaagsan. habits, qofku sidiisaba waxa la yiraahdaa caadooyinkiisu samaysta, caadooyinkiisuna noloshiisa sameeyaan. يعني qofku wax kala maaha, waa una caadooyinkiisa, waa waxa uu sameeyo ee uu soo celceliyo. samayso caadooyin ay ka mid yihiin caadada wax akhriska, ay ka mid tahay caadada wax qoraalka, ay ka mid tahay caadada inaad caafimaadkaaga aad ka fikirto, ay ka mid tahay caadada inaad relationship wanaagsan aad dhisato, skillskaaga aad kobciso. yeelo habits kuu saacidaya nolosha halka aad doonaysid inaad gaadho, kuu fududeynaya ahdaafta in badan oo ka mid ah systemka qofku ahdaaftiisa ugu xaqiijiyo. waxyaabaha ugu wanaagsan ee ugu waaweyn waxa weeye inuu caadooyin samaysto, oo caadooyinkaasi ay ku saacidaan sidii inuu autopilot u noqdo, oo resistance-ka gudihiisa ka imanaya, iska caabinta gudihiisa ka imanaysa ay fududeyso. waxa caadada ku ah kama fikiraysid, kama walwalaysid, culays badan kama dareemaysid, way adigoo sameynaya sarkaysa. yeelo caadooyin wanaagsan oo ku gaarsiinaya halka aad doonayso nolosha. talada 14aad, yeelo qorshe korriimo. personal development-ga si serious u qaado. wax akhri. maanta aad bay u fudud yihiin kutubtii iyo macluumaadkii, aad bay meel walba yaalaan. skillskaaga dhis, wax akhri. in badan oo kamid ah waxyaabaha nolosha bani aadamka kala kaxeeya waxaa kamid ah waa informationka. qofku waxaanu ogeyn ma oga. waxaa jira daahiye fara badan oo inagu hareeraysan oo la kabyo ah, oo kumanaan kun oo la kabyo ah. markasta ood wax ogaato, daah iyo derbi baa noloshaada faydmaya. waxaad ogaanaysaa waxaan horey aadan ogeyn, waxaad baranaysaa waxaadan horey aadan ogeyn. ya mindsetkaaga iyo fikirkaaga wuxuu gaaraya meel u tagaya meel aan hore aanu gaarsiisnayn. idan si serious u qaado korriimada iyo wax akhriska iyo wax barashada iyo xirfad dhisidda. talooyinka inta ugu dambaysa ama
lixda ugu dambeeya waxay noqonayaan skills aan isleeyahay aad bay muhiim qofka inuu barto xirfadda koowaad noqonaysana talada 15aad waxa weeye inaad ku wanaagsanaato xirfadda communicationka noqo qof awood u leh wax gudbinta bani aadamku wuxuunba isku qiimeeyaa inta waxaad gudbintaadu hadba ay leegtahay intaad articulate tahay aad wax sharxi karayso waxa maskaxdaada ku jira aad cid u gudbin karayso inta aad cid wax ku qancin karayso cid la gorgortami karayso cid wax ka dhaadhicin karayso taasay goysaa bani aadamku waxa aad ka iibin karayso waxa bani aadamku dadka ku kala sarreysiiyo waxa bani aadamku kala kaxeeya waxa bani aadamku uu midba kale kaga hormariyo waxa weeye waa awoodda wax gudbinta waa awoodda fagaarka hadalka waa awoodda wax ku qancinta waa awoodda inta uu qofku negotiate gareyn karayo cid wax ka dhaadhicin karayo ku wanaagsan oo sida wax loogu gudbiyo qoraalka iyo sida hadalka wax loogu gudbiyo waa xirfad noloshaada runtii markastoo aad xirfadda aad barato waxaad ka akhriso dhageysato skillskeeda barato tijaabiso isku daydo waa markastoo aad noloshaada u diyaar garoobayso waa markastoo aad dooranayso in bani aadamku ay ka hormariyaan in badan oo kamid ah dadka kale waayo marar fara badan nolosha bani aadamku waxa weeye waxay u badan tahay in qof aad ka aqoon badan tahay ka xirfad badan tahay ka connection badan tahay ka karti iyo ogaal iyo fikir wanaagsan tahay in laga hormariyo sababta laga hormariyo wax kale ma waxa weeye inuu wax ka gudbin og yahay waa inuu ka fasaxsan yahay waa inuu ka codkarsan yahay ma wax lagu dhasho oo wax cid waliba ay baran karayso idan marka baro sida qoraalka wax loogu gudbiyo hadalkana wax loogu gudbiyo hadaa doonayso nolosha inaad meel sare oo la majeerto aad ka gaadho xirfadda labaad ay noqonayso talada 16aad waxa weeye inta aad yartahay baro xirfadaha la xiriira lacagta aad bay maanta daruuri u tahay qofku inuu barto xirfadaha la xiriira lacagtu maaha qaayada maaha lacagtu ما waxaan doonayno eventually inaan gaadhno lacagtu waxay noo fududeynayso waa sadaqada aad bixin karayso waa sida aad noloshaada ugu tayeen karayso waa sida waxa aad familkaaga iyo ehelkaaga iyo waalidkaaga kugu soo tacab iyo tiir beelay aad ugu qaban karayso waa inta aad bani aadamka aad ka anfici karayso islaamka uga heelin karayso saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam alayhi ku hareereysna in badan oo kamid ah waxay ahaayeen marka maanta lacagtooda loo eego ay lahaayeen billionaires bay ahaayeen rag baa ku iibsaday janno يا عثمان بن عفان رضي الله عنه نبي محمد مالكي دغالكي وصحابته يا نبي صلى الله عليه وسلم عليه فرتي وهانتيديسي oo dhan dhiibay muxuu yiri sallallahu alayhi wasallam maanta wixii ka dambeeya Uthman waxa uu sameeyay loo qaban maayo imagine waa hantiranimo wax lagu gaaro idan inagu waxaan u baahanahay maanta marka inuu barano xirfadaha lacagta la xidhiidha laynama soo barin dhaqankeena kuma jiro laakiin waa muhiim maanta inaad barato xirfadaha la xidhiidha sida maaragtay dhaqaale loo sameeyo mindsetkeeda skillskeeda principleskeeda qawaaniinteeda wacaalkeeda iyo ogaalkeeda iyo fahankeeda inaad aad u sareyso aad bay muhiim u tahay xirfadda saddexaad noqonaysana taladeena 18aad waxa weeye inaad barato xirfadda barashada sida wax loo barto maanta wax kastoo bani aadamku soo bartay absolute bay noqonayaan muddo yar oo kooban xogtu maanta aad bay u fara badan tahay laakiin wixii aad baran lahayd sidii aad u baran lahayd wacaalka u kala dooran lahayd isku motivate gareyn lahayd distractionka isaga ilaalin lahayd ya mindsetkeeda u yeelan lahayd waa xirfad u baahan in la barto waana mid kamid ah xirfadaha ugu waaweyn ugu muhiimsan ee qarnigan ay tahay qof wal inuu barto waxaad baran karayso wuxuun bay ku xidhan tahay inta aad ka taqaano xirfadda sida wax loo barto xirfadda afraad noqonaysana talada 19aad baro relationship skills bani aadamka sida loola macaamilo 80% successkaagu wuxuu ka imanayaa awooddaada la xidhiidha dadka sida loo dhaqanto human nature-ka wax ka baro dhaqanka iyo dabciyada bani aadamka wax ka baro skillska la xidhiidha wax ka baro naftaada wax ka baro waa inta aad bani aadam la cilaaqo la sameyn karayso la xidhiidhi karayso la macaamili karayso waxay ku xidhantahay inta aad naftaada ka taqaanto inta aad self aware ka tahay naftaada aad ogaal u leedahay inta aad naftaada maareyn karayso control karayso inta aad akhriyi karayso dadka kula macaamilaya fahankaaga dad la macaamil inta uu gaarsiisan yahay baro xirfadaha la xidhiidha bani aadamka iyo sida loola macaamilo baro emotional intelligence-ka oo ah mixwarka iyo mid kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan skillska ugu muhiimsan dad dhaqanka marka ay noqoto xasuusnow waqtigu wuxuu go'aamiyaa cid aad nolosha la kulmayso qalbigaaguna wuxuu go'aamiyaa cid aad soo dhaweysanaysid la saaxiibayso laakiin dabcigaagu
wuxuu go'aamiyaa cidda kula sii joogaysa inuu dadku kula sii joogaan iyo inay kaa tagaan dabcigaaga go'aaminaya. xirfadda shanaad ee noqonaysa taladeena 20aad ee ugu dambeysa waxa weeye baro sida waqtiga loo maareeyo. waqtigaaga ha lumin. xilligaasi aad bay u fududahay wax kasta oo kugu hareeraysan, cid kasta oo kugu hareeraysan, dhacdooyinka kugu hareeraysan, timeka aad joogto, enerjigaaga iyo dareemadaada iyo qayb kasta oo adiga kaamilada wax u janjeedha, u dabacsan tahay, u jilicsan tahay inay baashaasho oo waqtiga in badan ka mid ah beel darayso. baro sida waqtiga loo maareeyo, baro sida wax loo prioritize gareeyo, baro xirfadaha la xidhiidha waqtiga iyo maareyntiisa, goal setting skills, sida wax loo blog gareeyo, sida distractionka la isaga maareeyo. baro xirfadaha la xidhiidha sida waqtigaaga aad u maareyn lahayd. waxaan is leeyahay talooyinka 20ka ah haddii aad weelayso, haddii aad ku dhaqanto, haddii aad hawlgeliso, runtii noloshaada 20 jirka wax badan bay ifinaysaa, kuna diyaarinaysaa mustaqbalkaaga. talooyinkana waa talooyin qalbigayga soo go'ay, waa talooyin aan jeclaan lahaa yaraanteedii inaan maqlo, adiguna aan jeclahay inaad weelayso. aad baad u mahadsantahay. inta maan gaajaysan yahay guuli waa weli. intaan muuqaal kale iyo barnaamij kale ku kulmi doono khayraad fara badan baan idin rajeynayaa. asalaamu calaykum. guulaysta.